adduunyadu waa imtixaan, waa dhibaato iyo murugo badan tahay. dadku isku si uma soo wajahdo, waxayna qof walba ku qaabishaa waji gooniya. dadka qaar baa farxad iyo reen ku qaata waqtigooda inta badan, halka kuwa badan la ay la nool yihiin murugo, ciil, uur ku taallo iyo caro aan dhammaad lahayn. qisadan waa qiso dhab ah oo ka dhacday Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Baay ee degmadiisa Bardaale. waa qiso xanuun badan oo aan uga magac daray Ileen Jecelku waa loo dhintaa. haddaba dhegaystayaal, si fiican u dhuuxa qisadan xanuunka badan iyo sida ay wax u dhaceen. aadan yare waxa uu ka mid ahaa ardayda wax ka barata dugsiga Amuurta ee degmada Bardaale, waxaana maalimaha ka mid ah uu bartay gabar lagu magacaabo Hawluul oo iyaduna ka mid ahayd gabdhaha wax ka barta dugsigaasi, isla markaana dhigata fasalka ama galaaska aadan yare uu dhigto. Hawluul iyo aadan yare barashadooda kadib waxaa ka dhex abuurmay jecel haddaaf ah oo midba midka kale u qaado, ilaa iyo dhammaan laga ogaado iskuulka, macallimiintana ay ka war helaan xanta jecelka lamaanahan. waxaana ay noqdeen kuwa iyagu si gooni isku tixgeliya, markastana wada jecel ay waqtigooda iskula qaataan. waxaana aashaqa midba midka kale u qaaday uu gaaray in haddii aysan isla joogin ay iska maqlaan telefoonka. nin adduunyo joogow, maxaa aragti ku laaban? aadan yare iyo Hawluul waxay noqdeen laba aad isu jecel oo aan kala maarmin. waqti kasta way isu imaan jireen, waxayna ka sheekaysan jireen mustaqbalkooda. waxaana midba midka kale u ballan qaaday in nolosha isaga la wadaagi doono. xaafadihii magaalada ayaa bilaabay xan aad u badan oo ay ku sheegayaan in labadan jecel uu ka dhaxeeyo. aadan yare ayaa la soo baxay dabeecad ka duwan tii lagu yaqaanay, waxaana uu joojiyey la sheekaysiga dhalinta magaalada, dheesha kubadda cagta iyo daawashada filimada oo uu caan ku ahaa. bulshada magaalada ayaa waxay bilaabeen inay su'aalo iska weydiiyaan waxa ka dhaxeeya labadan arday. dadka qaar ka mid ah waxay bilaabeen inay kala fogeeyaan lamaanahan isdoortay Ileen Jecel Haasid Mawaaye. gabdhaha ku nool degmada Bardaale qaar ka mid ah ayaa waxay bilaabeen inay gabadhii Hawluul ahayd ay uga sheekeeyaan sheekooyin khiyaali ah, taasoo ay ku doonayaan inay kala fogeeyaan lamaanahan isdoortay. hase ahaatee, Hawluul ayaa ahayd gabar Ilaahay aqli ku manaystay, mana qaadin jirin hadallada ay uga sheekeeyaan gabdhaha saaxiibadeeda ah. xataa waxaa dhacday inay ku kala go'aan qaar ka mid ah gabdhaha saaxiibadeeda sheekooyinkaas daraaddooda, waxaana mar walba is-xasuusin jireen inay leeyihiin cadow lidku ah xiriirka wanaagsan ee labadooda u dhaxeeya. jecelkooda maalinba maalintii ka dambaysa way sii xoogaysanayay, xeer wuxuu gaaray inay iskaga baxaan halkii jecelkooda uu ka abuurmay, halkaasi oo ahayd iskuulka Amuurta. gabadhii Hawluul ahayd ayaa gashay nolol ka duwan tii hore, jecelkii ayaa ka tanbadiyey, waxayna la soo baxday dabeecad gooni ah oo ay ka mid tahay cunno yari, hurdo la'aan, taas oo reerkoodii su'aalo badan ay iska weydiiyeen. waxaana reerkooda ay ku wareereen xanuunka gabadhooda uu hayo waxa uu yahay. reerka Hawluul ayaa horey waxa u maqli jireen in gabadhoodii uu jecel hayo, welibana ay jeceshahay wiilka aadan yare ah, laakiinse waxay u haysteen waxba kama jiraan ah. jecelka ay dhisayeen Hawluul iyo aadan waxaa qayb weyn ka qaadan jiray wiil ay aad iskugu fiicnaayeen aadan yare oo ku magac dheeraa Butay. waxaana maalimaha ka mid ah uu Butay kula taliyay saaxiibkiisa aadan yare inuu doonto gabadha Hawluul. taladaasi saaxiibkiisa u soo jeediyey waa uu ku qancay, waxa uuna soo aaday gacalisadiisa Hawluul si arrintaasi ugu sheego. waxaana uu u sheegay in geedkii jecelka oo muddada badan ay waraabinayeen uu koray, laamo ubax lena soo bixiyey, socdaalkiisana uu ku qotomo sidii ay ku cuni lahaayeen miraha geedkan uu soo saari doono. Hawluul ayaa ku faraxday arrintii, wayna ka aqbashay, waxayna qalanka ku wada duugeen inay soo doontaan. farxad, dhonkasho, eegmo jecel ayay ku kala tageen aadan yare iyo Hawluul. aadan ayaa arrintii ku wargeliyey reerkooda, laakiin kuma taageerin arrintaasi. aadan ayaa bilaabay walbahaar iyo oohin fara badan oo beddeshay muuqaalkiisa. mana helin aadan cid ka tirta ilmada haddii laga reebo gacalisadiisa oo mar walba ku qancin jirtay in isaga mooye cid kale nolosha la wadaagi doonin. maalimaha ka mid ah aadan ayaa go'aansaday inuu aado xagga iyo Itoobiya, halkaasi oo ay deganaayeen adeeradiisa.
كروني كبشر ما أقن قدقاقا كقروا الصفايا قابت مكوة دي قف من قرية كروني كبشر ما أقن قدقاقا كقروا الصفايا. arrinta safarkiisa ayaa waxa uu bandhigay saaxiibkiisa Butey waliba ku qasbay inuu ku wargeliyo gabadhii Hawlulaheed. aadan ayaa safarkiisa guda galay isagoo gacalisadiisa ku wargelin haddii laga reebo u bandhigidda safarkiisa saaxiibkiisa Butey. Hawlul ayaa weyday gacaliyaheeda aadan yare oo ahaa nuurka kaliya ay wax ku aragto iyo midka kaliya ay adduunka ka weheshato. wareer iyo walbahaar ayaa la soo darisay oo hin ayaa hindheheeda la casaadeen. maalin maalimaha ka mid a gabadhii Hawlul ahayd waxa uu yimid Butey oo ahaa ninka inta badan ka soo qayb qaatay xiriirka labadan qof fariintana looga reebay. markii ay maqashay inuu aaday Itoobiya ayaa oohin mooye wax kaleba lagu waayay gabadhii Hawlul ahayd. waxaa bilaabmay cidlo labaduba ay dareemayeen iyo nolol ka duwantii hore. aadan ayaa soo wacay habeenada ka mid ah Hawlul oo markaasi qalbiga ku haysay isaga aadna u murgoysan. lambar ka duwan kii hore ugu soo wici jiray ayuu ku soo wacay iyaduna ma weydiin su'aal ah hallow yaa weeye laakiin waxay hadal ku bilowday hallow aadan cadde halkeed ii joogta. markaasuu ku yiri macaan maxaad ku ogaatay inaan anigu ahay qofka ku soo wacay. kaftan iyo sheeko dheer kadib waxay gabadhii Haawo ahayd ay ku qasabtay aadan inuu soo noqdo uu soo raadsado taas oo aadan uu ku qancay. aadan ayaa ku soo laabtay degmada Bardaale waxaana uu go'aansaday inuu raadsado gabadhii Hawlul ahayd. waxaana arrintii u bandhigay qaar ka mid ah adeeradiisa maadaama aabihiis halkaasi ku sugneen. waxaana durba adeeradiisa isku raaceen sidii ay ku aadi lahaayeen reerka Hawlula ayna reerkood uga bandhigi lahaayeen inay doonayaan gabadhaasi. adeeradii ayaa waxay aadeen gurigii Hawlula reerkoodii waxayna u bandhigeen arrintii balse waxa loo sheegay in gabadhii mar hore la soo doontay lana siiyay qofkii soo doontay. aadan yare adeeradiisii ayaa iska soo laabtay iyagoo tala gacan ku hayn. waxayna ugu imaadeen hotel ka mid ah hoteelada ku yaala degmada Bardaale waxayna u sheegeen in gabadhii la soo doontay oo qofkii soo doontayna la siiyay. aadan ayaa arrintii fajac iyo yaab la noqotay wuxuuna wacay gabadhii Hawlul ahayd waxaana u sheegay arrintii. Hawlula ayaa hadal laga waayay oo hin mooye. joogii ayaa isbedelay. farxaddii ay wada haysteen ayaa waxay u bedeleen murugo. aadan ayaa hadal ka soo bixi waayay. mar labaad ayuu ku noqday adeeradiisa ayaa waxay ugu jawaabeen kelmad ah waad waalan tahay quraan saar ayaad u baahan tahay. walwal iyo walbahaar badan kadib Hawlul reerkoodii waxay ogaadeen in wiilka aadan yare ah iyo gabadhan uu xiriir jecel uu ka dhaxeeyo. si arrintaas loo soo gabagabeeyo waxay ku qasbeen in ninkii si degdeg ah u soo orooso. maalin maalimaha ka mid ah ninkii la siiyay Hawlula ayaa si dhaqso leh u soo oroosay gabadhii Hawlul ahayd iyadoo aan ogoleen ayaa agal la geeyay. maalin maalimaha ka mid ah ayaa aadan wuxuu ka warhelay in gabadhii la oroosay. aadan ayaa geeri ku sigtay 10 maalin oo xanuun ah oo uu jiifay gurigii hooyadiisa. wuxuu go'aansaday inuu iskaga soo tago degmada Bardaale. aadan ayaa waxaa hadda ku nool yahay magaalada Garowe caasimadda dawladda Puntland. dhagaystow haddii aad xanuun dareentay ogsoonow inaad tahay qof bani aadana rabbi haggiisana u noqo qofka aad jeceshahayna had iyo jeer qadari oo ballantana adkee. barnaamijkan waxaa idin soo diyaariyey anigoo Siraaji Shaysaaq ah oo ku sugan magaalada Garowe caasimadda dawladda Puntland. ugu dambeyntii anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan waalidiinta Soomaaliyeed aan ka codsanayaa inay tixgeliyaan jecelka aruurtooda ay sameynayaan taasoo inta badan dhalinyarada caqabada ay soo wajahdo ay tahay dhanka waalidka. amaana Allah.